qoftaas meesha iga soo dhimatay dir alxamdulillah ilmiga ana hooyay ana aabay laba sano ka hor reerkiisa oo geedi ah ayay xaaskiisii ku soo dhimatay jidka mar walba oo uu soo xasuustana jirka iyo qalbiga ayaa dubaaxinaya xaaskii waxa ku dhacay dhiig wax dhacay ku dhacay sayleed macnaha dhiigan caadanaagad way sayleed baashi uu yareysinaysa baashi waa bisfurtay anu macnaha rinri baadiyana macnaha takhasus iyo caafimaad wax meesha miiga dhaweyn haddii qof macnaha ka saay magaalada caafimaadkeeda waxaad ka saadeeyay barnaamij sida gal meel sida gal ma hayo halkan waa kaam ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir qoyskan aqalka dhisanaya ayaa ugu dambeeyay qoysaskii soo degay halkan ee ka soo barakacay abaaraha ka dhacay deegaanadoodii sanadihii ugu dambeeyay waxa halkan oo ah kaam ku yaala ee degmada Kaxda imaanayay boqolaal qoys oo ka soo salkacay guryahooda ama deegaankoodii oo ku yaalay gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolada Baay iyo Boqol halkaas oo ah meelaha ugu badan oo abaaruhu ay ka dhacayeen isbedelka cimilada ayaa dad badan waxa uu ka dhigay guryo la'aan waxa uuna ka baabi'iyay xoolahoodii beerahoodii iyo wixii ay ku noolaayeen Ayduru Saalax Axmed waa aabba 3 caruur ah noloshooda kula daala dhacay kaamkan oo uu degan yahay muddo 2 sano ah waxa uu ka mid ahaan jiray beeraleydii iyo xoolo dhaqatadii awdiilne oo ka tirsan gobolka Baay balse abaaro soo noqnoqday ayaa ka dhigay isaga iyo qoysas kale oo badan cayr iyo in ay cilla ka soo istaagaan hantidoodii iyo noloshoodii oo dhanba xooluhu joogeen xoolihii macnaha wuxuu baahay xoolihii naftkooda wuxuu baahay nolol u baahan xoolihii naftkooda nolol u baahan xoolaadii nolol haysin coos haysin baad haysin maxay ku noolaanayeen baaba xoolihii meesha ku baabeen beerihii biyo malaha roob ma da'ay aniga weegu ma degan meel bay dhul dhaaw bay awdiin dhaan deganay oo magaaladeedu ay tahay baydhabo ay tahay deganay roob ma ka da'ay webi noo soo dhaw xoolihii meesha noo joog erigii loodi anigoo arkayna horteen ku geeriyooday waxba ka weyni anigoo arkayna in horteen kuna bixi loodi waay erigii waay biyo uma hayn baad uma hayn aniga teen waxa la alooshay faaruq ay maxaa u qaban karnaa adduunka oo dhan waxa iminka ka jira walaac ku aadan saameynta xun ee isbedelka cimilada Soomaaliyana waxa ay ka mid tahay dalalka ugu nugul dhibaatooyinkaas sababtoo ah markasta fatahaadaha webiyada iyo abaaraha soo noqnoqda ee ka dhashay isbedelka cimilada waxa ay saameyn weyn ku yeeshaan nolosha dadka